barasabka xigeenka ismaamulka Wajeer Mudane Axmed Maxamed Aato ayaa maanta si rasmi ah u daafuray mashruuc gargaar ah oo ay ka faa'iideysan doonaan in ka badan 1,000 qoys oo danyar ah. mashruucan oo ay hirgelinayso hay'adda Development Concern Initiative la soo gaabay DCI ayaa lagu taageerayaa dadka ay saameeyeen xaaladaha adag ee nololeed, gaar ahaan kuwa uu saameeyay cudurka Kala-Azar, waxaana loo qorsheeyay in lagu bixiyo gargaar isugu jira lacago cadaan iyo agabyo muhiim ah. mashruucan ayaa lagu sheegay inuu ku kacayo 6 milyan oo shilinka dalka. halkan ku launch gareynay project ay DCI ay ka qabanayso Wajir West iyo parts of Wajir North, especially dhanka Gurar. project kaasoo ah xagga kabitaanka dadkii xoolo ay sameeyeen roobabkii iyo meelihii ay Kala-Azar ka dhaceen, sidii xoogahoo dadkii waa xasuusteen markii Kala-Azar iyo roobabkii dadka markoo jidadka ka xirmay xoogahoo dadkii noloshoodii markay roobabka iyo arrimahan dabiici ahayn ay dhacaan dadka noloshooda waa isbedeshaa. marka sidii xoogahoo culayska gaari looga kaalmeeyo oo at least loo gaarsiiyo lacag 6 milyan ayaan maanta meeshan ku launch gareynay oo loo qayban doono dad gaaraya ilaa 1,000 qoys. 1,000 qoys oo qoys kasta uu heli doono lacag 6,000 iyo alaabtii la dhahaa non food items oo alaabtii sidii alaabtii jikoniga lagu karsan lahay, sidii saabuuntii, sidii shandarwadii laga xiran lahay kinaacada. maxaa yeelay markii roobabka ay dhacaan waxaa dhaca cudurro badan oo la socdo saameyn kule dadweynaha ayaa dhaca. marka sidii malaariyada iyo waxyaabahaas iyo daawadii biyihii lagu kala hagaajin lahay oo la dhahaa aquatabs waxa isku laayaan bixinaynaa, taas oo raacsan tahay dadweynaha training badan loo sameeyna sidii markay aafada amal roobabka ama abaaraha iyo waxyaabahan ay dhacaan ayay soo caawin lahayn oo capacity-gooda lagu horumarin lahay. marka taas baan maanta halkan iskugu imaadnay arrintaas oo maanta aan xariga ka jarnay oo la rabo sidoo ugu dhaqsiyaha badan in alaabta dadweynaha ku gaarto. lacagtaasna la gaarsiin doono 6,000 qoys oo 6,000 heli doonaan. waa maanta waxaan halkan iskugu imaadnay project-kana waxaa wada hay'adda DCI oo Development Concern Initiative and the donor waxa waaye niman qolo la dhahaa Start Network ayaa maanta halkaas baan saasan halkan iskugu imaadnay. Gobolka xigeenka Wajeer ayaa uga mahadceliyay hay'adda dadaalka ay ku bixinayso wax u qabashada bulshada deegaanka. Many households in that area of Grifto and neighboring settlements. We commissioned the first phase, which was phase 1 to serve Grifto town, but there is phase 2 and phase 3 to cover the settlement as well. So to start with, we thank everybody, all the partners at whichever level, for the initiatives they bring in support of our community. Today we are here to launch an initiative to support about 1,000 households affected by Kala-Azar and or flash floods, recent flash floods of March, May this year. This will cover those patients who are in Wajir Referral Hospital and many other parts of Wajir County, particularly Wajir West, East, parts of Adas, I think, quite a number of other areas. We also have non-food items for those which were affected by the flash floods of March and May this year. So this initiative is welcome. We thank the implementing partner, we thank the donors for the same. ugu dambeyntina waxaa si weyn loo soo dhaweeyay barnaamijkan ay u fulinayso hay'adda DCI iyadoo la sheegay in uu ku soo aaday xilli aad loogu baahnaa. Aadan Maxamed Xasan maanta waxaan ka qayb galnay mashruuc ay maalgelinayeen Development Concern Initiative oo ku saabsan arrimaha loo yaqaan response-ka sida Kala-Azar ama maxaa la dhihi jiray arrimaha flash floods. sababta qaanin DCI oo ah hay'ad shaqo badan ka qabatay arrimo fara badan ay qaban jireen sida access to justice oo caruurta sida loo yaqaano children who are in conflict with the law. haddana waxay arkeen in ay wax weyn ka qabtaan arrimaha disaster-ga oo ka mid tahay Kala-Azar
ayagoo oo maxaa la dhihi jiray waxbarasho u hagaajinayeen laamaha isbitaalka iyo ayagoo also oo keenay maxaa la dhihi jiray cash transfer program oo rabaan ummadda inay wax la qabtaan marka DCI waxaan leenahay mahadsantiin shaqada fiican ka haysiin community-ga si fiican u sii wadin anagana aan maxaa la dhihi jiray wax idin la qabanayaan rabnaa because DCI Development Concern Initiative in collaboration with Christian Aid have intervened to support people who have been affected by Kalaza in parts of Wajir North, Wajir West and Alas sub-counties or constituencies. They have given out one-on cash transfer to 1,000 families affected, worth 60 million shillings. They have also provided capacity building to community health promoters, community health workers, in spraying the affected, fumigating, in fumigating the affected areas, in fumigating the affected areas and improving the livelihood of those people who have been affected through cash transfers and non-food items. We are grateful to them and we are grateful to those people who supported them. We urge them and other partners to continue supporting these initiatives so that at least as of today we have lost about 42 lives and about 400 other patients are in hospital. So we are urging other partners to come in and support them.